xilli ay soo tarayaan munaasabadaha lagu soo dhaweynayo magacaabista xukuumadda cusub ee dhowaan ra'iisul wasaaraha dalka uu soo magacaabay ayaa maamulka gobolka Galgaduud waxa uu soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa uu sheegay in si diiran uu soo dhaweynayo xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha isagoona golaha baarlamaanka u jeediyay in si wanaagsan ay u ansixiyaan waan bogaadinaynaa runtii xukuumaddaas cusub anoo ku hadlaya magaca gobolka iyo magaca ahlu sunnada ee gobolada dhexe qaasatan gobolka Galgaduud waxaan leenahay soo dhaweynaynaa aadaan ugu hambalyeynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa isleenahay maanta waxqabadka loo baahan yahay ee looga baahan yahay dalkan Soomaaliya kuwii wax ka qabta inay noqdaan inay maaragtay maanta dhibaatooyin ka jira dalkan runtii dawladihii ku meel gaarka ahaa ama hadda xukuumaddii ka horeysay dawladda federaalka ah waxa ay ka gaabiyeen dhammaanba maanta waxaa laga sugayaa xukuumadda cusub waxqabad ummadda Soomaaliyeed runtii ay ku naaloon karaan maantana dhibaatooyinka jirta ka saarin kara hadday ahaan lahayd amni hadday ahaan lahayd horumarka kale bulshada waanaan soo dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeed khilaaf way ka soo daashay khilaafkuna dhowr iyo 20 sano ayuu halkan maanta aynu fadhina ayuuna dhigay waxaan leenahay sida ra'iisul wasaaraha oo ansixisay xilligii la doortay xukuumaddan oo ansixiya adinku isku mid ah dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo ayaa waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo culimadiinka ahlu sunna wal jamaa ee bishii saddexaad ee sanadii tagtay lagu galay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxa uuna sheegay in heshiiskaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ilgaara ay ku eegto lana dardargeliyo maadaama waxyaabo badan maamulka gobolka Galgaduud ay uga xiran yihiin runtii aan soo jeedinaynaa xukuumadda u soo jeedinaynaa heshiiskaas hadda in dib loo eego la dardargeliyo sidii uu ahaa loo dardargeliyo lana hirgeliyo waxyaabo badan ayaa nooga xiran annaga ka gobol ahaan ama ka Galgaduud ahaan ama ka gobolada dhexe ahaan dhammaanna waa qodobo taagan oo runtii u baahan in heshiiskaas la dhiirigeliyo oo la hirgeliyo si ay ugu naaloodaan ama ay uga helaan waxay u baahnaayeen maamulka ahlu sunna ee dawladda federaalka ee heshiiska la galay mar walba waxyaabaha taagan ee su'aalaha ee la isweydiiyo ayuu ka mid yahay haddii ahaan leed xagga dawladda iyo haddii ahaan leedba xagga gobolada dhexe aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa heshiiskaasna xukuumadda federaalka cusub inay dardargeliso sidii loogu talagalana ay uga soo baxdo si kastaba ha ahaatee maamulka gobolka Galgaduud iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka ayaa guud ahaanba si diiran u soo dhaweeyay magacaabista xukuumadda cusub iyagoona sheegay in waxqabad balaaran ay ka sugayaan dhinaca kalena baarlamaanka ugu baaqay in si wanaagsan ay u ansixiyaan Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Dhuusamareeb.